السلام عليكم ومبارك محمود صليباني channel كيني تايطون ميديا maanta waxaanu ka hadli doonaa qisada ninkii la oran jiray George oo ah qiso murugo iyo xanuun badan haddaba daawadayaal intaynan muuqaalkiina gudagelin fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena muuqaalka like garee wixii faala iyo ra'yi aad qabtana qaybta commentiga nagula wadaag ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta George wuxuu ku dhashay magaalada London gaar ahaan degmada la yiraahdo Royal Broad of Kingston and Chelsea waa degmo ay u badan yihiin dadka ladan waa degmada ay ku yaaliin inta badan madxafyada England sidoo kale waa degmo ay ku idil yihiin iyada iyo soonaheedaba inta badan taariikhda Ingiriiska waa ereyada ay degan yihiin qoyska reer boqor haddaba George wuxuu dhashay sanadkii 1940kii aabihiis wuxuu ahaa maalqabeen hooyadiis iyo aabihiis waxay dhaleen kaligiis sanadkii 1964 ayuu ka baxay jaamacadda la yiraahdo University College of London wuxuuna bartay juqraafiga si gaar ah wuxuu sii bartay Geographic Information System waxbarashada kadib wuxuu ka shaqo bilaabay dalka America gaar ahaan New York wuxuuna ka sii anba qaaday waxbarashadiisa isla maadada juqraafiga sanadkii 1970kii ayuu mar kale ku soo laabtay magaalada London waqtigaana wuxuu la taliye sare u noqday dawladda hoose ee London qaybta qaabaynta magaalada iyo bay'ada sidoo kale wuxuu la taliye u ahaa shirkado ganacsi oo waaweyn oo uu kala talin jiray si ay wax soo saarkoodu u noqon lahaa mid ku haboon wadamada ka iibsada gaar ahaan shirkadaha soo saara gawaadhida daawooyinka iyo matoorada iyo wixii lamida mar kale wuxuu bare ka ahaa akaademiye ay wax ka bartaan saraakiisha militariga oo uu ka dhigi jiray maadooyinka ay ka midka yihiin topographic and cartographic George wuxuu ahaa nin dadaal badan hogaamin iyo hal abuur iyo karti kulansaday wuxuuna gaadhay halku higsanayay meelaha uu George ka shaqeeyay iyo dhulalka uu maray wax la soo koobi karo maaha waayo waxaan rabaa inaan muuqaalkan soo koobo maadaama qisada George taxane aad u dheer laga sameeyay imikana waxaynu gelaynaa marxalad kale oo ka mid ah noloshii George nololka dhici George isaga oo darajada sare jooga oo ah aqoonyahan lagu tixgeliyo aqoontiisa ayay isku dhaceen gabadhii saaxiibtiisa ahayd oo magaceedu ahaa Alicia isku dhaca waxa sabab u ahaa masayr kolkuu uga shakiyay inay nin kale xidhiidh la leedahay George arinta aad buu uga xumaaday saaxiibtiisna way ka tagtay kadibna George niyad ayuu ka qaaday si uu isu ilowsiiyana wuxuu u batay goobaha khamriga lagu cabo isagoo aan isogeyn ayuu wuxuu noqday nin sakhraana oo khamrigu la tagay shaqooyinkii ayuu lumiyay haddana wuu ka sii daray wuxuuna u gudbay khamaar markaa kadib dabeecadii ayaa ka xumaatay gacan ka hadal iyo dagaal ayuu galay waa la xidhay muddo kooban xadhigaana wuxuu ku lumiyay sharaftiisii kolkuu ka soo baxayna way ku adkaatay inuu shaqo helo dabadeedna sakhraannimadiisii ayuu sii waday xaafadii ay saaxiibadiis joogeen wuu nacay isagoo diidaya inay arkaan noloshiisa sidoo kale wuxuu nabcaystay taladooda ah inuu dib u soo kabto taasoo ku coslayd inuu sameeyo qaar saaxiibadiis ka mid ah waxay ula talin jireen si canaan ah iyagoo xasuusinaya heerkii uu gaadhay taasoo ku sii ahayd dhaawac kale George markaa wuxuu gaadhay inuu ka dheeraado xaafadda ay degan yihiin dadka yaqaana si aanay ula talin wuxuu la xidhay qaar nolosha ka dhacay gurigiisiina wuu ka dhaqaajiyay wuxuuna derbijiif ku noqday waqooyiga London iyo xaafado aan laga aqoon wuxuu gaadhay xaalad xun iyo nolol aad u liidata oo ayna halka ku soo koobi karin soo kabashadii labaad ee George oo gaajo nafi hayso goor maghrib dabadiisa ayaa wuxuu arkay nin meel gelaya wuxuuna weydiistay wuxuu cuno ninku meesha uu gelaya waa masaajid waa nin Bakistaani ah oo lagu magacaabo Sheikh Hamad sheekhi wuu istaagay nasiib wanaag bil Ramadaan ayay ahayd masaajidkana cuntooyin ayaa yiil wuxuuna u keenay cunto wuxuuna ku yidhi habeen kasta waqtigan oo kale inta bishan lagu jiro halkan iigu imow cunto ayaan ku siinayaa George wuu u mahad celiyay wuxuuna weydiiyay su'aal meeshu maxay tahay yaase cuntada keena kulli Aasiyaan baa tahay xagee ka timi Sheikh Hamad wuxuu uga jawaabay su'aalihii oo dhan kolkuu u sheegay inuu Bakistaani yahay ayuu George wuxuu sheekhi uga sheekeeyay Bakistaan iyo buuraheeda dhulka dabeecadiisa waxa ku habboon cimiladeeda Sheikh Hamad oo laftiisu nin aqoon leh ahaa wuu yaabay kadibna sheekhu wuxuu ku adkeeyay George inuu habeen kasta yimaado halkan inta bishan lagu jiro si uu cunto u siiyo
habeen labaad Georgiyo ma iman wuuba ilaabay. Laba beri kadib ayuu Hamaad derbi ku arkay Georgiyo oo aad u dacdaraysan. Lacag yar ayuu siiyey, wuxuuna ka codsaday inuu masaajidka ugu yimaado. sidii oo kale ma iman Georgiyo wuuba ilaabay. maalin kale ayaa sheekhi arkay isagoo aad u diifaysan. maalintaana wuu soo kaxayey, masaajidka ayuu keenay, cuntuu siiyey, dhar ayuu siiyey. intaa kadibna qol yar ayuu seexo ku yidhi. Georgiyona qolkii habeen iyo maalin isku bixisa ayuu jiifay. kolkuu soo toosay ayaa sheekhi kaxayey, timihii iyo gadhkii ayuu ka soo jaray, meeshii ayuuna ku soo ceshay. intaa kadib ayuu sheekhi Georgiyo waraystay. Georgiyo oo markan caadi ah oo sakhradii ka baxday sheekadii ayuu dabada u qabtay, isagoo uga sheekeeyey sheekhi waxyaabihii noloshiisu halkay gaadhay iyo halka ay iminka joogto iyo xaaladdan uu ku jiro. sheekhiina wuxuu u sheegay waxaasi inaanay wax weyn ahayn, soona kaban karo si fudud. Georgiyona wuxuu yidhi ma dhici karto. sheekhiina wuxuu ku yidhi haddii aad nolosha aad hadda ku jirto iyo tii hore aad ka timi kaba tagto oo nolol saddexaad gasho, kuwii hore waad ilaabay, waxaadna ku noolaan kartaa nolol cusub oo aad u fiican. Georgiyona hadalkii wuu ka helay, wuxuuna yidhi nin yahow waan rabaa sidee. wuxuu yidhi sheekhi talooyinka aan ku siiyo bal tijaabi, hadday ku anfici waayaan sidaadii iskaga noqo. Georgiyona arrinkaas wuu aqbalay. haddaba sheekhi wuxuu ku yidhi qolkaa yar deganow, waxaannu arrinta ka bilaabaynaa inaad muslinto. taasna waxaannu ula jeednaa inaad noqoto qof ka beddelan kii aad ahayd. inta aanad muslim noqonna akhriso buugtan oo ogaal fiican u yeelo diinta. 5 beri kadibna haddii aad ku qanacdo waad muslimaysaa. waayahay buugtii buu soo akhristay Georgiyo. 2 beri kadib ayuuna u yeedhay sheekhii, wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa inaan muslimo oo weliba waddamada muslimiinta ku noolaado. Georgiyona sidii ayuu ku muslimay, masaajidkii ayuuna deganaa, mu'addin ayuuna ka noqday, aad buuna isu beddelay. kadib in muddo ah markii laga joogay ayuu sheekhi wuxuu ku yidhi inaan si dhammaystiran isu beddelo waxaa iiga dhiman inaan dalkan UK iskaga tago oo aanan abid ku soo noqon. haddaan dalka Bakistaan tago wax badan ayaan tari karaa oo aqoon ah. sannadkii 1983 ayaa Georgiyo iyo sheekhi waxay tageen dalka Bakistaan. Georgiyo markiiba jaamacad ayuu bare ka noqday, wuxuuna noqday nin firfircoon oo dadkii dhex galay. aad ayaana loo jeclaystay aqoontiisa, inkastoo sirdoonka Bakistaan ay basaasnimo uga shakiyeen. Georgiyo iyo nin kale oo saynisyahan reer Bakistaan ahi waxay isku dayeen inay dayax-gacmeed sameeyaan. dowladdii Bakistaan ayaana ogaatay arrinkaa. ninkii reer Bakistaan waa la xidhay. Georgiyona wuxuu u baxsaday dhanka Afghanistan, wuxuuna galay buuraleyda Afghanistan. halkaasna wuxuu kala noolaa qabiilka la yidhaahdo Baashtuunka. qabiilkaasoo aad uga faa'iidaystay aqoontiisa, wuxuuna ka caawiyey dhanka beeraha, waxayna siiyeen gabadh uu guursaday iyo dhul uu beerto. dalka Afghanistan waxaa aad looga beertaa xashiishadda, daroogana looma yaqaano. Georgiyo wuxuu dhaqaale fiican ka helay beertiisii, wuxuuna yeeshay gaadhi, waxaana u dhashay wiil uu bixiyey Hamaad, wuxuuna ugu magac daray sheekhii magaalada London ku muslimiyey. haddaba Georgiyo iyo xaaskiisii iyo wiilkoodii oo ku safraya dhul buuraley ah ayaa Georgiyo wuxuu arkay meel ciiddeeda uu aad uga helay. gaadhigii ayuuna joojiyey, kamaradiisii ayuu la soo baxay, kadibna isaga oo wax sawiraya ayaa kii yaraa gaadhigii taabtay. isaga iyo hooyadiis oo saaran ayuu haadaan aan salkeedu muuqan oo buur ah kala dhacay. Georgiyona wuu isku dayey inuu ka daba tago, tabar baanse u run sheegtay. 10 beri kadib ayuu soo gaadhay beertiisii isaga oo keligiisa. kadibna Georgiyo beertiisii iyo beeralaydii uu la noolaa wuu iskaga tegey. kolkii uu dareemay inay qabaan shaki ah inuu gabadhii iyo wiilkeedii dilay, wuxuuna tegey magaalada Kaabul. muddo bila ah ayuuna masaajid mu'addinka ahaa. mar dambe ayuu iskuul barayfada ayuu luuqadda Ingiliishka ka dhigi jiray. waa ka sii gudbay oo jaamacad ayuu macallin ka noqday, wuxuuna guursaday gabadh kale, wax carruur ahna uma dhalin. Georgiyo marka uu Kaabul tegey waxa socda dagaalkii Ruushka iyo Afghanistan, wuxuuna ku biiray ciidamadii Afghanistan ee ka soo horjeeday Ruushka. mise waaba khabiir sida khariirada loo sameeyo ku takhasusay, wuxuuna ka mid noqday taliyayaashii howlgelinta. haddaba markii dagaalkii Afghanistan ee Ruushka lagula jiray uu dhammaaday, waxa dagaal kale ka dhex qarxay hogaamiyaashii Afghanistan. wuxuuna ka mid ahaa Georgiyo hogaamiyaashii ciidamadii ninkii la oran jiray Qutbuddin Xikmadyaar. haddaba Georgiyo oo gaadhi wata ayaa miino la kacday, labada lugood ayaana go'ay. saaxiibkiis Qutbuddiinna waa laga adkaaday. iminkana waxaynu geli doonnaa silix ku noolaanshihii mar kale ee Georgiyo mar kale noloshu waa ku adkaatay. mar wuxuu isku dayey inuu shaqaysto oo tumaal noqdo,
hase yeeshee xaaladda dalka oo adkayd uma suurtagelin. masaajid ayuu hor fadhiisan jiray oo ka tuugsan jiray. isaga iyo dad badan oo masaakiin u badnaa oo ahaa dad dagaaladii waddanka ka socday ku dhaawacmay ayaa masaajidka hor deganaa, kuwaas oo ku tuugsan jiray nabarrada dushooda ka muuqda. halkaana waxaa mar kale Georgia uga bilaabantay nolol kale oo adag. haddaba waqti qabooba ayaa hay-ad doonaysay inay dadka caawiyaan masaajidkii timi. Georgiana hay-addii ayuu soo dhoweeyey, wuxuuna ka warbixiyey xaaladda dadkaasi ay ku sugnaayeen. hay-addii ayaa la dhacday, islamarkaana wuxuu noqday turjubaan. dib u soo kicii Georgia ee mar saddexaad. Georgia hay-addii waxay siisay gaadhiga curyaamada oo koronto ku socda. isaga iyo dadkiina waxa la dejiyey meel dugsoon. dadkii ayuuna guddoomiye u noqday. Georgia wuxuu bilaabay dib u soo kabasho. wuxuu xidhiidh la sameeyey dowladdii hoose ee Kaabul, wuxuuna u sheegay inuu xariif ku yahay qaabaynta magaalooyinka. sidoo kale wuxuu u sheegay inuu hore uga soo shaqeeyey dowladda hoose ee Kaabul. dowladdii hoosena waa soo dhoweysay. kolkii la arkay inuu shaqadan ku fiican yahay, xafiis ka shaqeeya arrimaha ayuu ka howlgalay ilaa uu madax ka noqday xafiiskii. nin ay halkaa ku saaxiibeen oo Amerikaan ah ayaa siiyey gaadhi gacmaha lagu wado oo dadka naafada ah loogu talagalay. ninkaasi wuxuu u soo jeediyey inuu Ameerika tago, halkaasna uu shaqo fiican ka heli karo. Georgia soo jeedintaas wuu diiday, sidoo kale UK inuu ku laabtona wuu diiday. Georgia isagoo ka shaqeeya xafiiska dowladda hoose ayaa waxaa la taliye dhanka qorshaynta iyo qaabaynta magaalooyinka ka dhigtay Hamid Karzai oo ahaa madaxweynihii Afghanistan 2002. Georgia muddo kadib shaqada waa ka tegey, islamarkiiba waxa shaqo siisay khuburo Amerikaan ah oo daba joogay raadadkii hubkii cuslaa ee Russia u isticmaashay dagaalka Afghanistan, gaar ahaana dhulka buuraleyda ah. Georgia danta u weyn ee hay-addan uga shaqo bilaabay waxay ahayd inay ka caawiyaan siduu u gaadhi lahaa buurtii gaadhigu kala dhacay xaaskiisii iyo wiilkiisii. arrinkaasna waa ku guulaystay, wuxuuna soo arkay burburkii gaadhigii iyo qaar lafahoodii ka mida. Georgiana 2004 ayuu isagoo markaa oday ah wuxuu ku dhintay qarax Taliban u dhigtay hay-adda uu la shaqayn jiray. haddaba waxaa bil ka hor dhimashadiisa waraysi ka qaaday wariye Al Jazeera u shaqayn jiray. haddaba qoraalkan waxa la qoray 2012. Facebook ayaana lagu qoray, waxaana ka soo xigtay ninka la yiraahdo Cabdishakuur Cali Nuur. isaga laftarkiisu waxa uu ka soo xigtay website si taxane ah loogu soo qori jiray sheekada Georgia iyo dad kale oo muslimay. website-kaasna waxa lahaa reer Pakistan, waxaana la oran jiray Al Dawa. sheekadii Georgiana halkaas ay noogu soo dhamaatay. maantana halkaa inoogu joogto. wassalaamu calaykum.